السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. markii wixii loo maleegayay khilaafada islaamka ee Cusmaaniyadda iyo jabkii lala maaganaa lala helay ee si rasmi ah loo jabiyay waxa uu heshiis la galay Atatürk dowladihii reer galbeedka ahaa ee xulufada ahaa ee dagaalka ku adkaaday runtiina heshiis laguma tilmaami karo ee waxa lagu qeexi karaa nin uu ka adkaaday baad ka qaadaya shukran ya rabbi shukran هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا يا رب. heshiiska Lausanne waxa la kala saxeexday 24kii July 1923 oo lagu kala saxeexday dalka Switzerland gaar ahaan magaalada Lausanne waxaana heshiiskan isku gacan qaaday xulufadii ku guuleysatay dagaalkii koowaad ee dunida iyo hogaamiyihii qowmiyadda Turkida ee Mustafa Kemal Atatürk waana heshiiska gundhiga u ahaa aasaaska jamhuuriyadda Turkiya iyo baabi'inta khilaafadii Cusmaaniyadda. heshiiskan waxa lagu laalay in dhulkii islaamka ee mideysnaa ee Istanbul looga talinayay gebi ahaanba ay Turkidu ka tanaasulaan oo Turkida oo kaliya loo sameeyo dal la yiraahdo Turkiya inta kalena ay faraha kala baxaan oo ay dowladaha reer galbeedku u taliyaan. heshiiska qodobadii lagu kala saxeexday ee ugu muga weynaa waxaa ka mid ahaa hantidii khilaafada oo dhammaystiran oo la soo wareejiyo suldaanka iyo qoyska boqortooyada Cusmaaniyadda oo dalka laga mistaafuriyo inaanay Turkiya batroolka dhulkeeda qodanin 100 sano marin biyoodka Bosfor ee Turkiga oo loo aqoonsado inuu yahay mid caalami ah Turkiyana aanay xaq u lahayn inay dowladaha kale ka sheegato laalidda khilaafadii Cusmaaniyadda iyo abuurista jamhuuriyadda Turkiya iyo cilmaaniyadeynta dowladda Turkiya yacni in diinta iyo nolosha dadka la kala saaro oo aanay diintu wax saameyn ku yeelan nolosha iyo siyaasadda toona qodobadaas ayaana ugu doorroona heshiiskii la kala saxeexday. Turkigu waayahan dambe dhown walba waxa uu ka gaadhay guulo wax ku oola oo la taaban karo dhawaanahana waxa uu Rajab Tayyip Erdogan carabka ku hayay in markuu heshiiskaasi 100 jirsado ee la gaadho 2023 uu Turkigu la soo bixi doono shidaalkiisa uuna samaysan doono marin biyood uu ciddii maraysa kaga qaado cashuur oo dhaqaale ka soo galo inkasta oo iminkaba Turkigu aanu dab yar shidayn oo uu caalamka kaalin buuxda kaga jiro wax deyn ah oo haba yaraatay lagu leeyahay dalkaasina aanay jirin haddana insha Allah marka la gaadho 2023 waxa lagu rajo weyn yahay in awoodda uu iminka leeyahay laban laabkeedu yeesho taasina ma aha bushaaro ku kooban shacabka Turkiga ee waxa ay bushaaro u tahay caalamka islaamka oo dhan waxana bushaaradaas sababaya xeerarka la kala saxeexday iyo dabaradaas duuleysiga oo ka furfurmaya dowladda Turkiya waxa waayahan dambe uu madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan ku celcelinayay in 2023 ay dhalan doonto Turkiya cusubi ayna noqon doonto dowladdii waayo la yaqaanay balse waa su'aale ma sahlanaan doontaa helitaanka Turkiyada uu ku hamiyayo Rajab Tayyip sida wareegtada nolosha adduunku ay ku dhisan tahay ma jirto guul weyn oo la gaadho oo bilaa jalaafo iyo hagardaamo ahi guuliba guusha ay ka weyn tahayna way ka khatar badan tahay maadaama uu Turkiga hamigiisu yahay inuu hilinka sare haabtana kollayba waa laga warhayaa inaan gacmo furan iyo galbis lagu soo dhaweynayn ee mindiyo lisan iyo miino aasan lagala hortegayo isla maanta oo aan weli waayaha la saadaalinayo la gaadhinna Turkiga waxa ku furan loolano iyo haliso mugle oo haabanaya ammaankiisa sida wadamada ku xeeran ee colaaduhu ka aloosan yihiin jabhadaha beegsanaya Turkiga ee PKK kooda ka tahay hanjabaadaha dowladaha shisheeye iyo kuwa carabta ahba kaga imanaya ee dhaqaalihiisa lagu beegsanayo in qalaabada gudaha kaga furan iyo ololaha lagu kicinayo iyo arrimo badan oo kale intaas oo waayo ku gadaaman haddana waxa uu goor iyo ayaan Turki u guntanayaa sidii ay muslimiintu adduunka uga muuqan lahaayeen ee maqaamkii ay maalin ku lahaayeen adduunka ay mar labaad u makansan lahaayeen taas ayaana lagula dagaalamayaa oo la doonayaa inaanay ka dhabayn iyada oo ay halisahaas oo dhami haabhaabanayaan Turkiga haddana waxa ay awoodeen inay hilinka guusha sallaan u raacaan oo dalkoodii 2002 dhaqaalaha adduunka kaga jiray kaalinta 111aad maanta waxa uu ku jiraa kaalinta 16aad dhanka kale waxa uu Turkigu marayaa heer uu samaystay diyaarado bilaa duuliyayaal ah dayax gacmeedyo uu isagu leeyahay hub ay nooca laba gujis oo labadaba ku samaystay 60 milyan oo dollar halka adduunkana midkiiba laga siisto 300 milyan oo dollar sidoo kale waxa uu 10 sano gudahood ku dhisay Rajab Tayyip 125 jaamacadood 198 dugsi 510 dhakhtar tiro aan dhayalhayn oo masaajido ah iyo madaarka Istanbul
ee lagu wado inuu noqdo madaarka caalamka ugu weyn. dhib kasta oo haystaba iyaga oo la daalaadhacaya ayay haddana isku wadaan Turkidu 2023 inay ka mid noqdaan 10 dal ee adduunka awoodiisa haysta ee ku doobiya. sidaa awgeed ayuu ugu celceliyaa Rajab Tayyip, waxaanu hinjin doonaa higsigii ablaga soo gaadhka ahaa. ilaahayna subxaanahu wa tacaala ku garab galo guushooda. waa awood islaamiya oo soo noolaanaysa 600 oo sanana islaamka hagoog u ahayd oo lagaga waabanayay. ee haddaba Soomaaliyey inamee inagu halkee ayaynu maanta maraynaa? شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب